حسين عرب waxaa soo saaraysaa hees cusub oo la dhaho hasheeda maxay tahay heestaas maxaynay tahay ujeedadaada heestan waxaa la yiraahdaa halkeen ka helaa waa hees xambaarsan mara aad u macaan badan macnaha waxay taabanaysaa heestan xaqiiqda qofka markuu heesto hal uu ku qanacsan yahay hadday sakar ka maqan tahay xitaa inuu tabayo mar walba taas ayay heesaha kale kaga duwan tahay waxaan filayaa bulshooyinka Soomaaliyeed qofka markuu dareemayo qofkiisa inay u tahay wax aad u macaan badan tabcan macnaha kama ahan karo heestan inay tahay mid la yaab la ajaa'ib oo heesaha hore aad waxyaalo badan ay ugu duwan yihiin sababta waxaad ku duubaysaa Paris maxay tahay ra'yigan ugu dhaliyay inaad ku duubtay Paris heestan halkeen ka helaa ayada ay nasiib u yeelatay Paris oo lagu qabto waxaana Paris igu casuumeen dad aad u fara badan fanaaniin Faransiis ah khaasatan directoro in aan heeskan halkan ku qabto markaan bandhigay sheekada heesta iyo miraha iyo waxa loola jeedo macnaheeda markaan bandhigay ay waxay xaqiiqsadeen inay heestu baaga ay ka heleen waxaan macnaha mahad gaar ah soo jeedinayaa gabadha ay la matashay Naima Nina iyo Stefan ya sorry fanaan waxaa tahay aad loo jecel yahay dadka dhan ay yani aad ay u xiiseeyaan maxay tahay adiga kala duwan marka tahay fanaan marka thesis iyo marka tahay qof caadi oo shacabka ku dhex jirtay mid kala duwan tahay mase mar walba yani sida kaamida kaaga aragnayash sidaad ay tahay waxaan filaa horta waxaan waa haybad ma aha wax iska normal ma aha sida aniga ay la tahay markaan bulshada ku dhex jiro markaan wax matalayo waxaan ahay qof sameynaya film ama programka ku jiro haddaan qof saaxiibka la sheekeysanayo waxaan ula sheekaystaa sida macnaha dhabta ah haddaan filimka sameynayo waxaan jeclahay sida xaqiiqatan filimka siduu yahay inaan u sameeyo ama inta kale iska dhaafo maxaa ka dhihi lahayd hasheeda hasheeda waxaan ka dhigi lahay the best song oo heesayga ka mid ah heesaha heesta u jeceshahay waa maxay magaceedna heesayga heestaan u jeclahay waxaa la dhahaa caashaq laabta kaa gale taas ayaan aad ugu dhartaa okay oo hadda maanta hasheeda ayaad qaadaysaa waxaana ku jiraysaa wadanka dalka Paris aad maanta ku sugan tahay imanoo qaadi kartaa in yar oo hasheeda yani heestaada had if you don't mind طبعا haloogeeda helaa u haweenahaye har iyoone habeen hooskeed iska dhamaystiro anigu ugu ibar joogaa waay wow waa hees aad iyo aad cajaa'ib waay heestaanad mid kugu socotaa mase mid dadkan ku dhacday maxay ka sheekeynaysaa heestaan horta anigu dhammaan heesahayga dhan waxay ku saleysan heesa jacayl ah waxaan jeclahay hablaheena Soomaaliyeed inaan amaano weli ma aan maqaalin intaan fanaan ahaa hees aan ku caynayo gabar ama aan dhahayo saan baa tahay markaan tahay dhammaan heesahayga aniga ima khusayaan waxaan u bandhigaa bulshooyinka Soomaaliyeed qofkii naagtiisa habi ku ah qofkii doonaya inuu nolol qurux badan helo qofkii raadinaya hashiisa uu jecel yahay sida heestan oo kale laakiin nothing hees aan igu salaysan ma jiro dadka ku jecel ee ku taageer ee ku sugaya maanta heesahaada cusub maxaa dhihi lahayd bulshooyinka Soomaaliyeed khaasatan dadka ay taageero waxaa la yahay 100% baad mahadsantiin dhahay haddii ayagu ahaan lahayn ma noqon lahayn aan Xuseen Carab aniga taas ayaan u sheegaa waxaan la yahay waan mahadsantiin